ku soo dhawaada YouTube channelkeena sidoo kale waxaad nagala socon kartaan Facebook page-keena waxaan idin soo gudbinaynaa barnaamijyo xiiso badan oo la xiriiro bogaadinta caafimaadka waa xalqadii saddexaad ee barnaamijkeennii baraarujinta bulshada halqadani waxaan ku bandhigi doonaa ama aan ku gorfayn doonaa kaniiniga tramadol daawada tramadolka kama mid ahan daroogooyinka dabiiciga sida codeine iyo morphine tramadol waa kaniini ama daawo gacan ku rimis ah oo lagu sameeyo shaybaarka kaniiniga tramadol waxa uu ku yimaadaa noocyo fara badan sida kapsulka kaniini ama waxa loo yaqaano tablets wuxuu ku yimaadaa injection ahaan ama cirbid ahaan sida lagu yiraahdo Soomaaliga tramadol waxa kale uu ku yimaadaa asiga oo goojo ah si dadka aysan ugu qaataan ama nooca shanaad ee ah budo si looga isticmaalo darooga ahaan kaniiniga tramadol markii ugu horeysay waxa sameeyay shirkad Jarman ah 1977 xilligaas kadib 15 sano waxa loo suuq geeyay caalamka kale waxa markii ugu horeysay loo arkay suuqyada Soomaaliya 2010 iyadoo ay keentay shirkad Soomaali ah tramadol markii uu jirka galo waxa lagu hagaajiyaa beerka enzyme loo yaqaano cytochrome B450 tramadol waxa loo bedeli doonaa maado loo yaqaano endorphins taasoo la falgali doonto receptorada opioidska tramadol waxa uu saameynta ugu ballaaran ku leeyahay maskaxda bini'aadamka tramadol waxa uu keenaa farxad beenaad ama waxa loo yaqaano euphoria wuxuu yareeyaa daalka jirka wuxuu badiyaa awoodda jirka wuxuu yareeyaa xishoodka wuxuu badiyaa sidoo kale cabsi la'aanta sidaa darteed waxa uu siyaadiyaa in qofka uusan ka xishoonin shukaansi haddii uu watay ama oraha uu watay inuu sax u gudbiyo tramadolka waa uu ka qatarsan yahay sida loo malaynayo marka kugu horeyso aad isticmaasho kaniiniga tramadolka waxaad ku arki doontaa lablabo iyo matag dhibaatooyinkiisa waxaa ugu horeeyo wadna garaac fara badan iyo wadna garaac qaldan waxaa kaloo leeyahay murugo been ah ama naxdin beenaad dhibaatadiisa ka mid ah inuu keeno confusion wax loo yaqaano ama wareer waxa kale oo keenaa neefta oo kugu adkaato ama neefta oo kugu dhagto joojinta kaniiniga tramadol waxa ay sababaysaa loo yaqaano niyad jabka waxa kale oo ka dhaxli doontaa joojinta kaniiniga tramadolka walwal iyo walaac fara badan iyo waliba inaad noqoto qof isku dhaxyaacsan oo aan arrintiisa isku aadanayn haddaba waxaan ku haynaa talooyin ku anfaci doono oo ku saabsan isticmaalka kaniiniga tramadolka haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad soo booqato fadlan hubi in aad subscribe garaysay hubi inaad ku dhufatay calaamada gaduudan ee subscribe iskuna bedeshay subscribe baleelkan raaci si aad noola socoto waxyaabaha soo socda waad ku mahadsan tahay la socoshada videogeenan waqtiga socday sidoo kale la soco qaybaha soo socda ee aan kaga hadli doono caafimaadka bulshada mahadsanid